gabagabadii shirkii ay yeesheen iyo kulamadii gaarka ahaa ee madaxweynaha iyo labada madaxweyne ay galeenna waxaa ka soo baxay warmurtiyeed wada jira. Warmurtiyeedkaasna madaxweynaha Uganda wuxuu uga mahad celiyay madaxweynaheena booqashada uu ku yimid iyo aqbalaadda uu aqbalay casuumaadda u fidiyey. sidoo kale waxaa warmurtiyeedka lagu adkeeyey taageerada dowladda Uganda ay u fidiso dowladda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha amniga oo ay nagala shaqeyso dowladdan. sidoo kale madaxweyne Yoweri Museveni wuxuu soo dhaweeyay horumarka ay ku talaabsatay dowladda federaalka Soomaaliya ee dhinacyada amniga iyo dib u habeynta maaliyadda iyo runtii hufnaanta ay muujisay xukuumadda federaalka Soomaaliya. sidoo kale waxay labada madaxweyne isla qireen sida ay muhiim u tahay in la sii dardargeliyo howlaha xasilinta Soomaaliya. madaxweynaha Uganda wuxuu sidoo kale runtii soo dhaweeyay aadna u bogaadiyay isbeddelka geeska iyo sida dalalka geeska ay ugu xoroobeen cabsida iyo khilaafka iyo runtii isriixriixa loona gudbay marxalad iskaashi iyo shirarkii Casmara iyo Baxradaar ka dhacay iyo shirka soo socda Muqdisho ka dhici doonaba inuu muhiim u yahay xasiloonida gobolka oo idil